ciidamada Carbeed marka kor laga soo eego aad ayay u xoog waaweyn yihiin, aad ayayna cabsi ugu abuuraan shucuubtooda. laakiin markii ay xaalad kharaar tagto iyo dagaalka foolka foola way kala yaacaan oo si foolxumo iyo fadeexad leh ayay u dumaan ciidamada Carbeed. wargeyska Al-Qudus ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay maxay ciidamada Carbeed si fudud ugu burburaan oo ugu kala cararaan. ka soo bilow ciidamadii Qadaafi oo hal mar kala yaacay iyagoonba dagaal gelin, ku xeji ciidamadii Ciraaq 2014 kuwaasoo magaalada Mosul uga cararay Daacish, ku soo xeji ciidamadii Suuriya ee dhowaan kala yaacay, iyo xitaa kuwii Saddam Hussein ee sanadkii 1991 Kuwait galay. sida foosha xunna loo soo jebiyey. dhibta ugu weyn ee ciidanka Carbeed haysata waa inaanay wax mabda iyo mowqif ah ku dhisnayn oo hadba qoyskii iyo kooxdii waddanka haysata ay maamulato. tusaale ahaan, muddo 12 sano ah ciidamada Suuriya waxay ku dagaalamayeen halku dhigga ah nafteenna iyo ruuxdeenna ayaan kugu furanaynaa oo kuu huraynaa Bashaarow. Bashaar al-Asadkii laga tuuray xukunka dalka Suuriya. yacni waddanka oo dhan waxaa ka muhiimsan qoyskii reer Asad. arrimo badan oo kale oo ciidamada Carbeed fashiliya ayaa maqaalkan Al-Qudus ka buuxa, sida musuqmaasuqa, xargaha goostay, iyo inaan askarta la siin mushaharaad ku filan oo baahiyahooda daboola. in qoysaska ladan ama kuwa xiriirka la leh madaxda aysan carruurtooda u oggolaan inay ciidanka galaan, oo dabaqadda hoose ee mujtamaca ayaa la ciidameeyaa oo keliya. dadkii u malaynayay in ciidanka Suuriya uu ilaa iyo sanadkii 2012 uu awooddiisa isaga caabinayay mucaaradka Suuriya, wuxuu waagu ku baryay qolyahaas oo ay ku jiraan dowladaha Khaliijka Carabta oo Bashaar al-Asad soo dhawaysanayay muddooyinkii u dambeeyey. markii Iiraan ay yaqiinsatay in ururkii Xisbullah uu tabar yareeyey oo aysan Suuriya ka sii dagaalami karin, ruushkuna go'aansaday inuusan Bashaar al-Asad sii difaaci karin oo uu Ukraine xoogga saaro. markaas ayay mucaaradkii Suuriya 12 maalmood kaliya ku qabsadeen ilaa iyo Dimashq. 12 sano tan iyo 2013 waxaa mucaaradka Suuriya hortaagnaa quwado shisheeye sida Ruushka iyo Iiraan. markay kuwaasina meesha ka baxeen, ciidankii Suuriya waa kala dhunteen. ciidan walba oo quwado shisheeye isku dhiiba oo aamina sidaas ayaa u dambayn doontaa. Afghanistan ayaana tusaalaha ugu fiican u ah.